una xidho xabsi guri waana markii labaad ay dadka ay codsanayaan in orgigani lagu xidho xabsi guri sanada waxaan arkay nin gacan ka jibiyey waan sheegay marar intuu dad uu dilay leeydin maxkamada jeel ku xukunto dhowr sano guriga ku xidhnaa way markaa orga la wada yaqaano inta badan dadku kuma safaadaan hawshiisana iska wataa suuqana iska dhex qaadaa markaa wallaahi orga markii la xukumay daawadayaal saa la sheegay orgigani wuxuu geystay dhibaatooyin buu geystay maxkamadda la geeyey intaas waxay ka dhacday magaalada Hargeysa imisa xukum والله أنا صحة ما هي سنة ويا حوار تقولوا كحنا ونقولوا وكسر بحنا وحبس قريبا الوحدة حبس قريبا الوحدة مرة كل واحد مغودين فوق الحدة بكور موضوع عرض أنا أدينا على الشيء وقد عاد بأجريسيف ومد على بغوية مرة تدخل أنت بدل شو ده أنا كعادي سنة هذا بس كده حياة هذا كلام ورد عقر منه ماشي وده عمر كرم إنسان وده كاريه واحد بيتابعني أرجع جريت صبرنا هالكل شوجا هل مرة مقولين هل مرة مقولين مقولين أيوة مقولين أي حاول تخانق على رأي يا صب الوطنية على رأي والله إنك على ورايا ولا خاطئ من كتاجن وحنا مرر بدن سويدين إنك مر وبتشجون تتاجن ياكو شقاي كديكو شقاي أو قرنا ولي أنا وعد فرتكو في قمانه لكن سعيد بار شقا كله إقبال أورجي قصده أورجي ما يعد باره لكن سعيد جود شقا كله أم بطبعا أم بحس بودره أم بحري لاحيت أم بني مسافرين لي وأنا ولي سويدين إن أدمونه صح يا نكاسي تشجعينه بقول ما كبرت حتى دمرتي قبيو حبوبين أو سلسلة أيو كل جوسيني أنت أفو أنت قصتي كرماي بدأوا حملنا ندي إلهي وما قطعوا أدي شغلة قوة مارك يسيه إلهي وما قطعوا أبيض النصر أوانس isku soo wada xoriyayada xukuumadii hore Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo ay ordigana u dirtay xabsi hal sano isla markaasina dib loo soo daayay ayaa dadweynuhu waxay mar labaad codsanayaan in ordigana xabsiga loo taxaabo cali uraaye gabihaanba wuxuu kala xidhay wadooyinka isagoo isla markaasi ay ka shaqayn kari waayeen traafikada magaalada Hargeysa Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Koobi TV-ga SBS magaalada Hargeysa